rag badan ayaa aaminsan in gabadha oo la hantiyaa ay bilow iyo dhammaad u tahay furayaasha guusha iyo waarinta nolosha qoysnimo. Markay sidaan ragga qaar u fikirayaan, waxaad moodaa inay iska indhatirayaan xaqiiqda ah in guurku uu yahay heshiis laba dhinac ah oo ku dhisan wax isdhaafsi iyo in mid kasta oo ka mid ah lamaanuhu uu leeyahay doonis iyo waxa uu kan kale ka filanayo. Taas oo haddii la helo wax badan ka qabanaysa in xiriirku qoysnimo uu waaro. Khubarada cilmiga bulshada ee aadka u daraaseeyay xiriirka lamaanuhu waxa ay cadeynayaan in jidka ugu horeeya ee lagu xaqiijin karo baraaraha iyo guusha qoysnimo ay tahay iyada oo daraf walba kan kale u fuliyo waxa uu dalbanayo iyo danaha uu leeyahay iyo in aanu labada dhinac wiilka iyo gabadhuga midkoodna filanin in isaga oo aan waxba dhaafsan uu kan kale u qumiyo dhammaan danaha iyo doonista naftiisa. Haddaba muuqaalkan waxaan daawadayaashayda kula wadaagayaa dhowr qodob oo qaar ka mid ah xeelarayaasha cilmiga bulshadu ay sheegayaan haddii raggu ay fuliyaan inay fure u noqon doonto in gurigu dhisnaado iyo inay si fiican isu fahmaan xaasaskooda. Balse marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, siina share gareyso, sidoo kalena aad ku soo biirto boggan Sabeel Cadaala mahadsanid. Qodobka koowaad, dareensi inay tahay qof la jecel yahay waa dabeecad dumarka oo dhami wadaagaan. Gabar kastaahina waxa ay doontaa inay dareento jacaylka loo qabo iyo ilaa heerka uu saygeedu kalgacayl u hayo. Haddaba dhibtu waxa ay tahay in rag badani ay xitaa ku fashilmaan inay fariin yar oo waan ku jeclahay ah u diraan xaaskooda, laakiin waxay moogyihiin in fariintan yari kaligeed ay dabooleyso baahiyo badan oo ay gabadhu qabto. Qodobka labaad, iscafiska iyo dulqaadka. Sinaba kuma waari karo guri aan tiir looga dhigin iscafis iyo isku dulqaadasho dhex taala lamaanaha isqaba. Waxaa muhiim ah in uu saygu fahmo in aanu jirin aadame dhammaystiran, xaaskiisuna ay tahay aadame. Mar walba waa inuu ku dadaalo cafiska iyo iska indhatirka qaladaadkeeda yaryar. Qodobka saddexaad, sheeko iyo hasaabe. Waa caado jirta in marka ay lamaanuhu muddo isqabaan ay ilaabaan habkii sheeko iyo hasaabe ee xiisaha lahaa oo horaantii uu midkoodba kan kale ku sixri jiray. Waxaa la arkaa sheekadooda oo noqotay mid daal iyo niyad jab keenaysa, laakiin khatarta jirta waxa ay tahay in marka xaalku halkaa gaaro la filan karayo burbur iyo nacayb soo dhexgala qoyska. Ragga ayaa ay dhibtani inta badan ka timaadaa oo xilliga ay xaaska isku cusub yihiin sheeko iyo hasaabe xiiso badan bara, hadhowna ka daala oo aan xiisayn xitaa inay si fiican uga wada hadlaan arrimaha danta gurigooda. Sidaas awgeed, khubarada xiriirka bulshadu waxa ay kula talinayaan raggu in saygu marka uu la fadhiyo xaaskiisa aanu ka sheekeyn shaqada, xaaladda cimilada, dhacdooyinka siyaasiga ah iyo wixii la mid ah, balse uu xaaskiisa u bilaabo sheeko iyo hasaawe ku saabsan xiriirkooda iyo gurigooda, iyo in mararka qaarkood uu xusuusiyo qisaskii xiisaha lahaa ee bilowgii xiriirkooda, sida in uu uga sheekeeyo waayahoodii dhalinyarnimo ee quruxda badnaa. Qodobka afaraad, iyada ayaa ka mudan wax walba. Rag badan ayaa ay caado u tahay in xaaska ay uga sheekeeyaan shaqadooda iyo duruufahooda shakhsiga ah ama rabitaankooda oo keliya. Tani waxa ay gabadha ku beertaa niyad jab iyo inay qaadato dareen ah in iyada iyo wadkeedu ay darajada labaad ka yihiin danaynta saygeeda. Saygu waa inuu xaaskiisa iyo ubadkiisaba dareensiiyaa inay yihiin kuwa ugu mudan fikirkiisa iyo danayntiisaba. waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaartay ilaa iyo dhamaadka muuqaalka. balse waxaan mar kale ku xasuusinayaa inaad like ii saarto muuqaalka, sina share gareyso si dad badani uu gaaro, kuna soo biir boggan Sabeel Cadaala haddii aad nagu cusub tahay. wixii aragtidaada ahna igu reeb qaybta hoose ee commentiga. mahadsanid.